Egypt waa waddan aad u ballaaran lehna badduleed ka badan 1 milyan oo kiiloomitir square, laakiin boqolkiiba 3 keliya ayaa wax soo saar leh, halka boqolkiiba 97 soo hadhay ay tahay dhul saxare oo lamadegaan ah. Haddii aad fiirisid sawir dayax-gacmeedkan, waxaad arkaysaa dhul yar oo midabka cagaaran leh kaasoo ku teedsan hareeraha webiga Niilka. Niil waa isha keliya ee ay ka helaan biyaha, waana sababta ay u dhahaan webiga Niil waa nolosha shacabka Masaarida. Kumanaan sano, biyaha webiga waxay ku isticmaali jireen dhanka beeraha. Qaahiro, caasimadda Masar, waxaa lagu wadaa inay noqoto caasimadda ugu horreysa adduunka Carabta. Waxaa ku nool shacab ka badan 20 milyan, isha keliya ee haystaana ay tahay webiga Niilka. Laakiin asalka biyahan waxay ka soo qulqulaan meel ka baxsan xuduudaha Masar, ku dhowaad 7,000 oo kiiloomitir dhinaca koonfurta sida harada Victoria ee buuraleyda Itoobiya. Ku dhowaad boqolkiiba 60 biyaha Niilka waxay ka yimaadaan halkan oo ah buuraleyda Semen ee waddanka Itoobiya. Laakiin beeraleyda Masar ee ku nool hareeraha webiga waxay wajahayaan xaalad adag, waxaana qalalay kanaaladii biyaha loo isticmaali jiray. Waxaa jirta biyo yaraan dhanka webiga xilliyada xagaaga, wax biyo ahna kama helaan webiga. Dowladda Masar waxay beeraleyda u soo jeedinaysaa inay beertaan dalagyada aan biyaha badan u baahnayn, biyaha yarna ay isku fileysiiyaan. Aan dib ugu laabana 10,000 oo sannadood ka hor, sidan oo kale ayay ahayd. Dhul cawseed, webiyo, harooyin wada biyo ah, meel walbana dhul barwaaqo ah. Laakiin waqti kadib, cimiladu waxay isku beddeshay kulayl iyo dhul qallalan. Taasi waxay keentay in aadanaha iyo xayawaanku deegaano cusub samaystaan una noolaadaan qaabab ka duwan Maro waxay ahayd caasimaddii boqortooyadii Kush. qiyaastii 1,500 oo kiiloomitir dhinaca galbeedka fogaan u jirta waqooyi bari waddanka Chad. Waxaa ku taalla buurta Naida. 10,000 oo sano ka hor, meeshani waxay lahayd cimilo fiican, roob ku filanna hesha, biyo ku filanna gelin kara harooyinka waaweyn, iyo Niilka huruudda ahaana isha saddexaad ee biyaha siisa webiga Niil, inkastoo hadda qalalay.
Sawirada ku xadhan aasaarta godadka qadiimiga ah iyo xogo kaleba waxay tusinayaan calaamado digniin u ah bulshada casriga ah ee waddanka Masar. Marka laga soo tago dhibaatada biyo la'aanta ka jirta Masar, waxaa jirta xiisad juqraafiyeed oo u dhaxaysa labadan waddan. Sanadkii 2011, Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay dhisayso dam ku kacaya $5 bilyan ahna kan ugu weyn ee laga dhiso qaaradda Afrika. Waxay Itoobiya rajaynaysaa inay halkaa kaga baxdo sanado badan oo ay jirtay cunto, biyo iyo leydh yaraan. Itoobiya waxay qorsheynaysaa inay u iibgeyso leydhka wadamada jaarka ah, taas oo ay ka heli karto sanadkii $1 bilyan. Mashruucan waxaa taageero ugu muujiyay wadamada jaarka inay dhisto Itoobiya damka, hase ahaatee waxay cabsi weyn ku kordhisay dowladda Masar, waxaana laga yaabaa in biyo yaraan soo wajahdo beeraleyda waddanka Masar. Isha kheyraadka nolosha laga helo waxay noqonaysaa isla isha abuuraysa khilaafka u dhexeeya bulshooyinka caalamka.